السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa la igu dilay waxaa tiri Soomaali weyn wallahi wax kale la igu dilnay billahi tallahi wallahi billahi wax kale la igu dilnay kastaliyaha feerahay wuxuu igu feerahay Soomaali weyn baa tiri والله بس wax kale ku hadlayn wax kale kuma hadlayn شرف حمو شرف حمو شرف حمو عيب 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 ها انت باش يساق عيب بلو سوتشيد عيب meeshaan anigu wixii ishardinaya ma hadli karo dhiig baa igu furmaan malinaya jaladii hore haddaad dhegaysateen waxaad maqlaysaan anigoo le saaqow hayo xoog sheeganina hayo xoog sheeganina dad dhulkan joogtaan oo ilaahay idin dejiyey anigana aan la iga xigin muslimnimo iyo ehelnimada waxaad maqlaysaan anigoo le saaqow hayo xoog sheeganina qabiilooyinku kala gabsan dadkuna kala sharaf badan aniguna waxaan u haystay beesha isaaq inay tahay beelaha ugu sharafta badan Soomaaliya ilaa haddana waan aaminsanahay hase yeeshee maanta Muuse Biixi inuu taliyihii ciidankiisa igu soo amro oo amar soo siiyo taliyihiisa ciidanka oo xataa sara dablaydii ay taaban ee taliyihii ciidanku feer halkaas makhaayadii dhexdeedii jag halkaa madaxa iga garaacayay meel walba kood walba dadka hortooda aan culamo iyo caamo u jeedeen waa sharaf darro beesha isaaq ku dhacday haddana qabiil walba meel buu ku xoog badan yahay ascaanood dad baa ku xoog badan caabudoq dad baa ku xoog badan argaabo dad baa ku xoog badan haddii ilaahay ku idmaayo warsangeli dad baa ku xoog badan gudubiirsay dhulkooda ciisa meel ku xoog badan hawaaden baa meel ku xoog badan jareer baa meel ku xoog badan nin walba meel majartan baa meel ku xoog badan hawiya meel ku xoog badan nin walba meel buu xoog ku leeyahay marka maanta aniga waxaan ka yaabanahay anigoo halkaan imid in Muuse Biixi askartiisa taliyihiisa ciidanka ugu sarreeyay inuu feer igala daalo oo madaxa i jabshay oo dhiig igu furan yahay hadeertaan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun والله بس تليه wax kala dheen wallahi ilaahay baa taliya inka taliyaha Muuse Biixi adeerkaysan ay way qabanayaan way iga damiyeen darbi bay saareen feer ruuxa in haddaan dambi ka galay idin ka galay saaqow ama Somaliland
waraysto oo maxkamada igeeyo oo haddii ilaahay ku idmahayo markaas haddaan dembi leeyahay sida sharciga adduunku yahay isaara maxkamad meeshaan mooryaantii koonfur ka jirtay oo kale aan ku arkay meeshaan ciidan asluub leh ma joogaan ciidan qaran oo asluub leh ma joogaan ciidanka asluubta leh qofka dambiilaha way qabtaan way waraystaan maxkamad bay saaraan meeshaan xoog baa la isu sheeganaya shacabkuna cabsiba ku noolyahay wallaahi billaahi tallaahi ninka isaaqa ah iyo laftigiisa xoog ku nool balaayo jinni aanan aqoon baa haysta wallaahi baana been idiin sheegan shacabka waa la haystaa xorna ma ahan dad jinni iyo balaayo jinni baa haysta ina ilay baa halkaa ka shaqeeya ina ilay baa hargeysa xukuma wallaahi billaahi tallaahi ina ilay baa xukun ku kaleetiyey ina ilayna meeshaan uga argoosanayo maxkamadaha caalamka aan uga argoosanaya insha allahu tacaala calaa kullin soomaaliya waa dilnahay mana sii hadli karo aniga somaliland baa idishay nama dhahayo isaaq baa idilay aniga meesha isaaq baa idishay isaaq baa idilay aniga hadii ilahay kudmaayo gogol baana u qabaa walaalahay anigu nin ciyaal suuqa ma ihi waxna ma caayahayo waxna ma caayin waxna ma cadaabin nin muslim oo garay gasho kana baxdaan hadii ilahay kudma halkaasaan ka hadlahayay u imid walaalahay aan jeclahay muslimiin ah ehelkaya dhiigaya dhacaankaya qurba iyo kasoo cararay jarteen haddaan u tegi lahaasaan iima dileen maanta runtaa fiican wallahi anaa jarteen i dileen billaahi tallah wallahi is i dileen billaahi tallah jarteen saains ii feeran iyo billaahi tallah waa ceeb baa ka dhacday maanta sharafta isaaqna waa la dilay maanta wallahi baan hawiye saa ii dileen nin hawiye oo military ah weliba taliya ciidan ah saa ii dileen maanta ilaahay gudmaayo dadka waa la haystaa dad xaaraan ah baana haysta dad askar xor ahoo sharaf laho isaaqoo la yaqaano aho qaran somaliland la yiraahdo oo jiraan oo xalaal aanu ma arkin hadday jiraan soomaalinimay u dhaqmi lahaayeen iyo dad qaran madax bannaan oo dulmi shalay iyo dhibaato ka dacwooday dad sheeganaya in la xasuuqay ama la dhibay ama raadsanaya wanaagii xumaan ay soo sheeganaya wanaag u bayray u socda wanaag iyo cadaalad iyo horumar iyo kala dambeyn iyo islaamnimo iyo wixii lagu halaagsamay inaan dib loogu noqon anigu halkaan ku jira adduunka intaan joogay ma arkin laba jeer baan soomaaliya intaan imid carab jarteen baan soo maray far layma saarin caraawiyaan soo maray xamar baan soo maray far layma saarin aad baan waxmay maanta hargeysa in laygu dulmiyo in laygu jijiido haweenka iyo carruurta hortooda in meel ganacsi oo private affair taliyihii musabixi oo fair igala daalay sidii jabhaddii snm oo u dhaqmay oo qaran anigu aan u malaynahayay laga gudbay hooyaadi iyo godka iyo dhufayska la soo gali jiray aad baan u cambaaraynahaya anigu dadkaan waxba uma dhimin sharaftooda waxma uma dhimin karaamadooda wax uma dhimin waxaa laga nahay shacabkii oo jecel taageerada shacabka halkaan degan ay ii hayaan baa laga nahay looma hayo musabix taageerada layga haya hargeysa wallahi baan loo hayno billaahi tallah laba qof oo usoo bannaan baxaysa musabixinaysa jira shacabkii buu ka haystay baa la yidhi ninkaan waxaasaa la faafiyey dadkii buu naa ka haystay waxa weeye ummadda soomaaliyeed waad ii jeedaa waa dilnahay caawa haddaan dhinto musabixi baa dilka iyo mas-uulka ah cid kale oo loo haysto ma jiro kursiga asagaa ku fadhiya musabixi ayaa mas-uulka ah hadday musabixi kasoo gudubtana beesha isaaq baa mas-uulka ah walaalahay aan martidooda ahay isoo dhaweeyey sharaf la iisoo dhaweeyey ehelnimo la iisoo dhaweeyey see u dhihi kartaa soomaali weyn مرجع يقام إنا لله وإنا إليه راجعون 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 hadduu ahaan lahaa nin alcoholisto oo ciyaal mooryaan oo isaaq oo meelahan iska dhacdhacayo waxbay ahaan lahayd hadduu ahaan lahaa nin haddii ilaahay ku idmaayo yani alcoholiste ah ama nin iska yani yani waxbayba ahaan lahayd taliyihii musabixi ugu sarreeyey musabixi ciidamadiisa
شعب كي دن شب ورق ما بقى شعب يقول لك هايستو قميص كجرا نين دقائق كرمله شعب كبود بلو قرعة شعب كظلم يا كجرا ماشان شعب كأرسيات برا حلي حلال بالله والله بالله إله ونحرس سياد برا إله سياد برا وكون نحرس اللهم ارحم محمد سياد برا وردتك هل كان تشوقه والله يستا إساق حتى ما هاللي كران والله ما هاللي كران عدالتك ما جرتو والله عدالتك ما جرتو روح هل كان كتير كم تشرين بوليس هل كان لكن I don't know برساقي قبتها أنا ما أركن حلاشة هاي أنا أقول شري ما أركن لا دراي كود ماي والله ما أركن بالله أركن وح ورجع أبان أركن والتقرأ أبان أركن دراي كود ماي إن إلي بالكان حكم وقبلها كوص هك هدي ناس كدعينه عدالة كل رقمينه سلامني ما كل رقمينه كسر عدالة سمستينه أنا هذا كل بعض دمانية داو عم دمانية هذا أنا دمانية بري أما أسبوعان أما بيل sababta I'm sure dhiig bay u socday u furan hadda dilay kud maayo been idin sheeg maayo halkaas bay naga garaacayeen iyo halkaas iga garaacayeen hadda waa iga dardaaran waxa kan iyo hadal isaaq aan walaalay weeye hadda Soomaalidu garbay isu dhigan jirtay dilay kud maayo qabiil walba haduu inta calan taagto dadka dulmiyo hadda ilaahina waa u jeedaa dulmigana ilaahay ma jecla إلهي ما تجعله لكن حالياب لأني جرتين ولقي سان وحوش اللي عبد الولي قاس قف بني آدم أنا حوشين هذا عبد الولي قاس أنا يعني باشا مجرتين أيضا يعني إذا ما لبسن ومجرتينه يا مدح إذا ما قرأين أنا قد لا يكون معي إذا ما قل مدوقة مهوية أو سعادة أنا مدح إذا ما قرأين إذا ما هدي لا يكون معي يعني رحموين أنا ولي بقى دبلا والله اللي ما يقص عتنا بين دي الشغين دبلا أو يعني رحموين أنا يعني طلية رحموين أنا ما فيرن رحموين طلية وجادين أنا ما فيرن الكوليست وطلية مسبح إمانت أنا فرق إجلد دالي نين مسلم إنه أنا أملين ما يقال إنه يهيب أنا أملين يا ديراي كده مسلم مسايم أنا أملين يا dadka kristaan kale sheeg jiray inuu ahaan u maleynayaan waa dilay kud ana aaminsanahay dilay kud maay sababtoo ah yaani waxaan muslimnimo ma waxaan islaamnimo ma nin muslima oo dad ehelkiisa la jooga oo waxaan ciwaanka ka soo dhigay hore farxadda iyo reereynta iyo dalxiiska iyo aan ku jiro magaalada Hargeysa ayaan ciwaan uga dhigay كروس جيل يا مرق يا عانو يا لين يا ولا إلى فدي يا فرحسن يا هريرة يا فدي سومالي وأركيسين سومالي ويني نكا تليا وحيري سومالي وين محد وهاي سابيري ورهدان ليه وبريبان ليه وبريدن بان ليه والصدم بان ليه سومالي وين United States of Greater Somalia وأكون دوناريا وأنا كل منايا تجيء أحرة قلاف أحرة هرري هواش أحرة لامو ينيروبي أحرة بدأ أحرة بريغا oo xora waa ku dhimanaya waana ku noolaanaya I'm sorry in ilay oo criminal oo Oromo xasuuqay oo Isaaq xasuuqay oo Mareexaan xasuuqay oo Dhulbaanta xasuuqay oo Majartaan xasuuqay oo Lalkasa xasuuqay oo Xawaadla xasuuqay oo Habargidir xasuuqay oo xasuuqay hadii la ku maayo xasuuqay Xawaadle oo xasuuqay عير حسوقي أو حسوقي رحوين أو حسوقي مريحان أو حسوقي الصوماليين عن فريق إساق إن ما أنت هرجيسة لحديدي وما رجتي كتشر دلها أيو بقر كشان صوماليا إن مسبيحي ونقضي لمود بس النقن إن وما رجتي ماش أي كتشر طعم حار أي كوني كنيس إن إثيوبيا قف كيدون أي كدليس إن قلب دلح سيدي سي أو كلا يعني أي كتشرته waxaan u maadnaqayaa taliyaha ama taliye ku-xigeenka Hargeysa Cagaweyne ninkaas nin sharaf la weeye shabaqlihii ay urteen maafiyada criminalska bilan xariista abaan leeyahay oo diriiska iyo sharafta ka wasakheeyay beesha isaaq maantana taliyahaas maxkamad in la soo taago ay mudan tahay hadii isaaq sharaf leeyahay weeye oo karaamo u leeyahay ninkii koodka ijibshay Muuse Biixi baana waxaas ka dambeeya oo la og hadda Muuse anagu saan uma qabin
laakiin lamood masa noqon waxa halkan ka dhacday cuquubada halkan ka dhacdayna waxaan ka baqayaa inay sabab noqoto ilaahay kama dhige yani waxa koonfurta ka dhacay oo kale inay ka dhacaan baan ka baqayaa anigu naftaan adare ama iga dhicin waxayna u egtahay inay ka dhacayso sababtoo ah madaxa kor uma qaadi karo yani dhiig baa igu furmay marka ummadda soomaaliyeeday cadaalad ma jirto meeshaan dulmi baa ka jira meeshaan culummadu waa baqaysaa meeshaan ganacsatadu waa baqaysaa meeshaan wadanigu waa baqahayaa meeshaan ninka geesiga waa baqahayaa meeshaan xataa isaaq xor ahoo dhulkiisa u madax bannaan ma jiraan ninkii isaaq oo hadla god dheer baa lagu ridahayaa ninkii sharafta ka hadla waa la xirahayaa ninkii karaamada ka hadla waa la xirahayaa ninkii ka hadla war xataa dadka somaliland la dhaho dadka qabaa'ilka halkan degan sharaf ha ku noolaadeen cadaalad ha ku noolaadeen wax wada qaybsi ha ku noolaadeen wixii dhacay ha iska saxeen lama ogola god baa lagu ridahayaa xoog baa lagu haystaa dadka anigu marka waxaan ka baqayaa in qabiil walba oo deegaanka somaliland jira maanta hubka inuu qaato maadaama si live ah taliyihii ugu sarreeyay ciidamada Muuse Biixi oo dadkii adduunka iyadoo laga daawanayo feer iyo farlaab iga daalay waa la iga damiyay telefoonka qoryaha la igu qabtay waad u jeedeen walaalayaal dadweynuhu waa u jeeday America Europe hay'adaha xuquuqul insaanka maxkamadda international maxkamadda caalamka Hague meel walba u jeedaan dictatorshipka meeshan ka jirta dulmiga ka jira Hargeysa cadaalad darrada ka jirta Hargeysa xorriyatul qowl aan ka jirin qabyaalada iyo qurunka iyo najisnimada ka jirta waad u jeedaan ummadda islaamka waad u jeedaan muslimiin Soomaali weyn waad u jeedaan hadda qabiil walowba anigu qaran baan u qabay meeshaan qabiil walowba calanka waxaan ku hadlay wada arkaysan war isaaq oo dulmiga iga daayan laha isaaq way soo dhaweeyeen isaaq way sharfeen isaaq way karaameeyeen isaaq shacabkiisu hoteeladoodii ay fureen anoo farxsan ban Hargeysa iyo quruxdeeda tan iyo xalay iyo shalay iyo damaashada aan ku jiray idin duubahay qasriyo iyo madaxtooyo ay dajiyeen wax walba sharaf laba waxba iima dhibin waa ehelkay laakiin dalka waa la haystaa jabhad anu ma dhahayo laakiin dad aanan aqoon ba haystaa hatta yani qaran dadku ay u taliyaan oo qaranka ka idan qaata ama ka madax bannaan military ma ahan waxa haysta dhasagle baa haysta waxa haysta qowmiyada jinni baa haysta waxaan leeyahay caqliga ku soo noqdo beelaha halkan dabow isaaqow gaar ahaan xor noqda gumaysiga iska xoreeya taasaan ku dhimanayaa aniga idil haddaad rabtaan gumaysiga ina ilay gumaysiga Ethiopia gumaysiga khaniisiinta carbeed ee imaaraad leh lacagta iyo dollarka iyo laaluushka iyo socota iyo xaaraanta meesha ka socota waxaan leeyahay isaaqow rag noqda dalkiina dhista bal midnimada iyo hanoo dambayso iyo waa kala tagnay anigu waligeena inkama maqlin igamiina maqlin anigu wax gacanta iigu jira caaw ma jiraan dad xor noqonaysaan iyo Soomaali madax banaani haddii kala anigu iguma jirto anigu miskiinka Allah lay dhahaa miskiinka Allahna gurigiina ayuu marti u noqday ilaahay uu marti u noqday thuma gurigiina marti u noqday marka يعني Soomaali weyn بمبلش الشيء إله سياد برا ونحرس إله محمد سياد برا ونحرس إله محمد سياد برا ونحرس إمام عادل بوها إمام عادل بوها والله بالله تالله بوصل إساقنا حسوقن جرتنا حسوقن 1986 سياد برا شل بابور بوغلاي داوع بوغلاي وابر بري عوكا للسعودية السعودية قال لك داوع بول بوها دالك ما حكمين دالك بربر بوكجري حسوقي هل كان جيستين محمد سياد برا ما جيسن محمد سياد برا أنا معارضي أنا كقيب قاعد ريدكي سوانا كحما مصاري أنا صومالي قلبيدي وقادية قلاي عفسكين الصور نقضي وحاوي قبيل مركز إن عذارك أسوي حجابي ديما دفاعي لكن دين هدانا وقال لها سياد برا أيان قرب قري لها والله بالله تالله وحي لدرني يردن بقرن دولن بيه بارو دشي بيه هايان الصومالي أورسادي دولي يدرحمو يبابا يهوك يهلاك بيه هايان وح قدم بيه سياد برا مجران اللهم ارحم سياد برا اللهم ارحمه اللهم أدخله الجنة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم أدخله الجنة
اللهم ارحم محمد سياد بري اللهم ادخله الجنة اللهم ادخله الجنة قف ولو دغيسو خطبتيسي ugu dambeysay war habbil la qaysanina dalka war dalka hadhicinina war masaakiinta halaynina war ummadda halaynina war isuna xariista war aniga xataa hadaad irideen idinku dad shacabka qaxinina waxa weeyaan been ba caruurihi lagu akhriyay maxamed siyaad barre xukunka cumar artiqaal buu ku wareejiyay waa la qariyaa taariikhdaas xusi doonta caydid baa diiday maxamed siyaad barre waxaa la xukumay xukunka waxaa la xukumay isaaq iyo hawiye iyo daarood baa la xukumay siilaan yaa la xukumay saraakiishiisi musabixi baa kamid ahaa waxa weeyaan beenta shacabka soomaaliyeed oo la in akrinayo ka baxa walaalatiin ehel baatihiin waxa weeyaan dalka gumaysi baa haysta jamhuuriyada xoroobahayo xor ana ma jiraan gumaysi baa haysta maanta qorta isaaqow qoro shacabka isaaqow xor matiida gumaysi baa ku haysta Ethiopia ku haysta Imaaraat baa ku haysta hadday jiri lahaayeen waan ku faraxsanaan lahaa maanta isaaq madax bannaan Somaliland qabiilo ku midoobay oo dhista oo madax bannaan oo aan gumaysi baa haysta wallahi billahi tallahi bana been idin sheegay gumaysi baa haysta ilaahi bana ugu dhawaanayaa kalimatul haqq inda sultaan jaa'ir waa shahiid ninkii dhinta isaga oo sidoo kale xaq sheegaya kalimatu haqqin inda sultaan jaa'ir waa shahiid haddaan maanta dhintana shahiid bana insha Allah ilaahayna shahaadada ay aqbalo halkan waxaad iga maqlaysana ammaan aan u ducaynayay saaka u dambeysay adin baa yeerahay waxaad maqlayseen musabbixiina laha ilaahu madaxda garab gal wasiiradiisa ilaahu la garab gal waxaad iga maqlayseen inaan lahaa ilaahayow deegaanka ilaali ilaahu nabadda u ilaali ilaahu barwaaqada u ilaali ilaahay halkaa ka ducaynayay Soomaali weynay waad maqlayseen maantana madaxa kor uma qaadi karo waa la idilay ashhadu an laa ilaaha illa allah waa dhul muslim waa jecelahay ashhadu an laa maqla hargeysa waa dhul muslim waa dhaxalkii awowgay dhaxalkii aabbahay laygama xigo wallahi isaaq iga xigin reer berberaanahay dhulkaan aan u dhashay aan ku dhinto wallahi baanan layga xigin musabbix iga xigin ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasuulullah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء hargeysa waa magaalada ugu diin badan Soomaaliya wallahi waa ilmeynaya adinka yariga hargeysa waa magaalada ugu diin badan waxa yeeray waa aadaan waa shacabka ugu sharafta badan baa jooga shacabka ugu akhlaaqda badan baa jooga dad ka fiican oo ka deeqsisan oo ka nasabsan anuu ma arkin laakiin waa dad la gumaysto ina ilay baa gumaysta ina ilay baa haysta halkaan hargeysa xor ma hargeysa waa in la xoreeyo
waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka iyo ama gudoomiyaha Hargeysa Cagaweyne oo aan nin sharaf leh nin ehela oo kamid ah ragga aniga idaawada xataa idaawanayay markii aan makhaayada xayisiinayay barwaaqada Somaliland ama dhulkan taala aan xayisiinayay daawanayay wax khalad aanan galin cid aanan caayin fidna aanan ka hadlin isku dir aanan ka hadlin qabyaalad aanan ka hadlin iskarigu markuu ifeerayay Soomaali weyn maxaad u leedahay Soomaali weyn qab Soomaali weyn erigaas ku hadlay taliyaha Musabixi halkaas iga feerahay qaq lamood ma sanoqon Muuse saan moodnay ma aha waxaan u maleynayaa dadkii tilmaamaya wala ninkan jabhad weey inay runtahay waan u maleynayaa waxaan u qabay nin jabhadnimo ka baxay waxaan u qabay nin madaxweyne noqday waxaan u haystay nin ummadda u dhaartay waxaan u haystay nin haddii la ku idmaayo Cabdimalik Muuse Aldoono hadda ka hor asagoo ku haya Soomaaliya asagoo ku haya iyo Xasan Sheekh Maxamuud erayo khaldan ku hadlay iyo isku xira Soomaaliya waan jirracooday asagoo diinta ka hadlayaan arka waan jirracooday asagoo Ilaahay xusayaan arka Musabixi waan jirracooday saan ku waasha Muuse yaa Muuse إلهي قرآن كسنتار حسي إني أنا الله رب العالمين لأن dadka waxa lagu khalday lagu khiyaanay Silaayo nin mu'min weey calimataan ma shal Silaayo isku tukanay safka roon ku tukanay Silaayo aniga xukunkiisa lagu ma dileen hadii la ku idmahay imana dileen Silaayo Musabixi ay dileen aniga أنا والله يجبنت حاوي عرفت عليكم ماذا عادة عاشة إلى عادتها بأم نقطة ناقت عادة حليمة إلى عادتها ناقت حليمة هي دقن كيدي حماه بأم نقطة سبحي دقن كيس حماه بأم نقطة سومالية جبن مدي سبأم نقطة قبيلك كفاني شري بأم نقطة لان ديرو كفاني هذه لا يكون معي وحكى لما حان دمي ساكو لما ندعيناي ولا إله موسى لقرب إله كركية إله حفظ إله هدنا والله سعد صلى حتى سعد صلى إله حفظ وإله دور وإله وحنا وسخط ضدك حسوقها يك متكقب تكدك وإله وطريقة توصل وإله جيس ذلك الدفاع كدك وإله عبد إليك تقرأ وجمعينها هي مديرة ورجعنا مدي سيء حنيه سلا صبح كدك مرساسا نقول دعيناي ورمانا يساق ورشيستي ورمانا مسبحي معارضي ورمانا دعائي وناقي موسى أمباقواي محال يدي لي يساقو أنا إساق بانقر وقبا ماشان قرن أنا ما أركو إيشان جبهات باناركا قرن حلال أنا ما أركو أنا باش إساق ولا لها إهلكيا ودادكيا oo waliba isaaqi xalaasha isaaqa oromada ama tigreega oo hadda af Soomaaliga barto waariyada ku haya oo xasadka oo saad ii jirdilay anu ma isaaqi xalaasha u yaqaanay oo uu ku jiray odayga Sacad Muuse makhaayada Golis aan isku qaabilnay antii Khaliif Galayr shirkiisa fadhiyay inaan reer Berbera ahay oo asalkii waqooyi galbeed ama Somaliland anigu aan ahay oo Berberaawi aan ahay oo dhulkaygii aan ahay kar u yahay هذه قبيل لي قبيل بالماشان وباب كله وواحد تاريخية أو أنا أهين إن لا يشرد له ولا إيه أرك أجنبي هذا واقع تتاسمر كواي ونقولك ما ضلنا وي دلان كان مليد دلان كانوا إسكالا نيكي لاندرا نيكي هدي له هوب هايستا نيكي جبهد له بإسكالا مرك وروحنا لا هاي وحنا لا يهدرتان عانق بتيهرب ولا طبقة بتاع waxaan leeyahay waan ku celcelinayaa dulmi badan baa ka jira Hargeysa wallahi Hargeysa waxaan leeyahay in calan walba qabiil walba muusas habar Yunus baa calan taaganaysa mar dhow iga qorataas iga qoraniga meel ku qorta ama shacabka waa dhex galay saan lagu socdo hadaan la joojin iyo xoog kan habar Yunus calan bay taaganaysaa habar jeclana calan bay taaganaysaa dhul baahantana calan bay taagan warsangalina waa taagan nin walba calan mutaagan nin hubkiisa u dhiibayana ma jirto nimankii aniga halkaan igu dilay maantay dhiig bay ku furan wallahi ma hadli karayo billahi Soomaaliyeey waxa kaaga daran marka ay fiirayaan
hadday inta meel jeel ay gashadaan ay feeri lahayen waxbay ahaan lahayen makhaayadii dhexdeedii inta derbiga ay saareen naq waxaan diidaya caruuraha hortooda xataa inay ugu feeraan wallahi taasaan xataa ka naxa xabad hadday igu dhuftaan caadi ahaan lahayd ya waxbay ahaan lahayd inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun soomaaliya dulmi baa ka jira 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 soomaaliya cadaalad daraa ka jirta soomaaliya xor maahan xamar waa la haystaa hargeysa waa la haystaa boosaaso waa la haystaa garowe waa la haystaa qardho waa la haystaa batabaan waa la haystaa caabudo waa la haystaa gido waa la haystaa luuq buulaxaaw galiley badii waa la haystaa kismaayo waa la haystaa baraawo marka baydhabo xudur dhuusamareeb beledweyne waa la haystaa wallahi waa la haystaa iyo bilaahi tallaahi waa la haystaa lascaanood waa la haystaa argaabo waa la haystaa wallahi meel walba maxaa la haystaa iyo bilaahi tallaahi soomaaliya kaca oo qabiil walowba degmadaada iyo tuuladaada difaaco diida etoobiya diida ina ilay diida new boolice iska celiya rag iska dhiga idinku dhexdiinina soomaaliya ay qori haysu qaadanina diida askarta dadkiina xasuuqaysa shacabkiina xasuuqaysa hargeysa nabad ha ku noolaato hargeysa baqdin mayse ku noolaanin culummadu baqdin inay ku noolaato maaha ganacsatadu inay baqdin ku noolaato maaha shacabku inay baqdin ku noolaadaan maaha ilaahay ka baqa wakhaafuuni in kuntum mu'miniin carra dhul muslim weeye muslimka halkaan joogo xor cadaalad ha ku noolaadeen run ha ku noolaadeen askari xeradiisa militariga ha joogo xuduudda ha difaaco ina ilay ha difaaco dad booliis oo shibila oo akhlaaq leh dadka ku dhex dadku waa dad nabad jecel oo dad nabad jecel waxaa lagu leeyahay mandheeraa lagugu ridahayaa wax kaa soo saarahayana ma jirto waxa weeyaan siyaad barre ilaahay ha u naxariisto ilaah u naxariisto ilaah u naxariisto ilaah u naxariisto ilaah u naxariisto wallahi aan dulmiga hargeysa maanta ka jira xilligii siyaad barre uusa jirin bilaahi tallaah wallahi uusa jirin waxaan leeyahay golaha guurtida isaaq nabadoonnada isaaq culummada isaaq ganacsatada isaaq dhalinyarada isaaq haweenka isaaq siyaasiyiinta isaaq walaalayaal waa lay jir dilay waana lay dhaawac baan ahay caawa haddaan dhintana isaaq baa i dilay muuse biixi taliyihiisi igu sarreeyay baana feer dadkii hortoodii makhaayadda carafaad yacni xataa ninkaa ganacsatada ganacsigiisa xurmeyn waayey ninkaasoo nin sharaf la isoo dhaweeyey ma hadli karo waa gariirayaa xunqaacaya haysa been wallahi baana sheegeyn soomaaliyay waa gariirayaa xunqaacaya haysa madax baa iga garaacay ninka taliyaha muuse biixi walaalayaal da waxaan leeyahay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun dadka muslimiinta ahaa waa la addoonsadaa muslimiintu cabsi bay ku nool yihiin muslimiintu ducfi bay ku nool yihiin boosaasay ducfi ku nool yihiin garowe ay ka baqdin ku nool yihiin gaalkacyaa lagu haystaa xamar baa lagu haystaa etoobiyaan baa haysta baydha baa lagu haystaa gadaa lagu haystaa kismaayaa la haystaa waa laydin haystaa soomaaliyey anigu dhintay ma nooli waa tegay taliyihii muuse biixi baana i dilay muuse biixi baana mas-uulka ah waxaan idinkugu dardaarmay falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun diintiina ku dhaga dalkiina difaacda dadkiina difaacda qabiilka iyo waxaan ka baxa dhexdiina fidna iska ilaaliya yaa la ysku kindirin hub haysu qaadanina daalimiinta askarahoo lebiska qaba mushaarkiina iyo canshuurtiina ku nool iska dhiciya diida askarigu qaanuun iyo sharci celiya waa inuu jiro shacabka burka iyo feerka la iskala daalahayo nin jaadwalo oo khamriye cabo aalkalaysto oo ina ilay xukumo ma soconayso shacabka ina ilay dhinaca galbeedka yani dhinacaas reer borom horta iyagaba iska daa ina ilay baba haystaba hadii ilahay kudmahayo waa jamhuuriyad gooni oo ina ilay hoos tagto oo xoog u ku haysta ina ilay reer boroma hubkeena qaata iska dhiciya ina ilay taasaan leeyahay hadda meeshaane anigu qaran kuma arko wadan madax dawladna kuma arko qabiil hubaysan baan arkaa anigu hadii ilahay kudmahayo sababta ninka isaaqa maanta aniga halkaan igu dilahayey isaaqnimo igu dilahayey hadduu dawlad yahay inta isoo dhow magacaa warqadaada aqoonsiga keen buu idhihi lahaa waa lagu baahan yahay xukuumaddaa kuu baahan buu idhihi lahaa saldhiga boolisku igeyn lahaa interview buu iga qaadi lahaa wuu i waraysan lahaa aayar maxkamad buu ii ballamin lahaa qareen iyo looyar baan qabsan lahaa aayar halkaasana haddii aan dembiilo ahayna xabsi la igeyn lahaa
haddii aana dambiile ahayna aayar lay dhihi lahaa raalli aho waa kugu khaldanay laakiin qori baagiis in laygu garaaco wallahi billahi tallaa qori baag laygu garaaco feer laygu garaaco yaa de isaaq baa idilay andheerana la ii sheegta hataa marka meesha qabiil qaran kama jiro qabiil baa ka jira dhulbahanta waa qabiil sangali waa qabiil musudheri waa qabiil gabooyi waa qabiil haddii saa lagu socdo dhulbahanta waa qabiil nin walba waa qabiil nin walbana hubkiisa nin kale u dhiibi maayo sababta hadda waxaan maqlaya hubka hala aruuriyo waayo haddaan hubka anuguba somalilander baan ahay haddaad hubka ninkaan iga qaado maantana saas anu gariinayo nafta hadda inay iga socotaan wallahi qiyaasa nin weyn wadka waa yaqaan wallahi waa gariinaya wallahi uma wallahi adkaysi baan khudbadan ku jeedinaya waana tii u dambaysa baan u malaynayaa wallahi telefonku waa iga dhacaya saas anu gariya dhiig inuu igu furmaan jeclahay 80% waxa weeyaan walaalayaal waxaan leeyahay waxaan laandhigo oo dhan inay yidhaahdo diida waxa weeye wakaas dad baa iisoo qorahaya cabdi ilay kuma dilana isaaq baa idilay aniga ilay baa idilay isaaq aniga waa walaalahay isaaq aniga ilay baa idilay isaaq ima dilin haddii ilahay kudmahay ilay baa idilay meel ku qora wallaahi billaahi tallaahi ragga idilay waa rag amxaaro ay taxarawda kula soo hadashay wey isaaq waa dhiigay dhacaanka kaalay aniga isaaq ugu dara isaaq hawiye waa ka jeclahay wadaarad waa ka jeclahay nin walba waa ka jeclaa wallaahi billaahi tallaahi waa dadkaygii waa dhiigaygii waa dhacaankaygii wallaahi billaahi tallaahi waa ka jeclaa soomaali oo dhan waa ka jeclaa wallaahi billaahi soomaali weyn qabiilkaa ugu jeclaa weye aniga isaaq waa dadkaygii laakiin waxaan halkaan sheegayaa xoog baa meeshaan ka jira meeshaan xadaarad dad sharaf leh oo xadaariyiina waa joogaan dad ganacsata ah dad xalaal qudata ah dad ehelka jecel dad soomaali weyn jecel laakiin aniga askariga maanta igu dilayay soomaali weyn wallaahi buuse wax kale ku hadlayni aabbahayo soomaali weyn dhac inta caayay dad diinta caayay oo soomaali weyn caayay aabbahayo soomaali caayay oo waayahay maxaan ahay waayo waa kane buuggan hargeysaan ka gatay waa kana buuggan hargeysaan ka gatay khariidadeennii wataas dhulkaas waa dhulkii soomaaliyeed haddaan u dooday oo aan gumaysiga leeyahay laga xoreeyo oo aan leeyahay gumaysiga ha ka xorowdo oo soomaali weyn ha xorowdo oo aan duceeyey war ma dhaqan fiican baa mise waa dhaqan xun wallaahi billaahi shahiid baan ahay mujaahid baan ahay mujaahid fii sabiilillaahi baan ahay waana ku dhimanayaa shahaadatun fii sabiilillaah haddaan iri jigjiga ha la xoreeyo oo harar iyo hawaash ha la xoreeyo oo qallaafa ha la xoreeyo oo wardheer ha la xoreeyo oo dirir dhaba ha la xoreeyo oo qabri daara ha la xoreeyo war walaalayaalow ma isaaq baan caayay isaaq baan caayay somaliland baan caayay haddaan iri ha la xoreeyo ilaahay baan ku dhaarshay ha la xoreeyo mandheera iyo laamu iyo ilaa iyo nairobi salkeeda walaalayaalow ma isaaq baan caayay haddaan iri intaas oo midaysan baan aaminsanahay I do believe haddaan iri United States of America waa dad konton dowladood isu tagay haddaan iri European Union waa midoobeen haddaan iri haddeertaan United States of Africa laga shaqeynaya Africa hal dowlad ah haddaan iri intaan baa horta ha midowdo intaas haddaan dreamkaas aan wado intaas ha midowdo intii horena yaa la kala googoyn ya haddaan iri ma dembi baan gala teeda kale qofku tacbiirkiisa sooma dhiiban karo xorriyatul qowl sooma jirto maxay tahay soomaali weyn ma dhigi kartid war meeshaan qaran kama jiro marka dastuurna kama jiro meeshaan xoog iyo jabhad baa ka jirta meeshaan qabyaalad baa ka jirta meeshaan dulmi baa ka jirta meeshaan dowladnimo kama jirto dowladdiina waa laga tegay soomaalina waa la diiday xorna lama noqon hadday xor noqon lahaayeen rag bay ahaan lahaayeen xor isaaq xora ama somaliland xora hadday ahaan lahaayeen oo gumaysiya ina ilay aan hoos tegin wallaahi billaahi tallaahi xor bay ahaan lahaayeen ma jirto shacabka isaaq waa la gumaystaa aniguna waxaa weeye taasaan aaminsanahay waana ku dhimanayaa taasaan aaminsanahay waana ku dhimanaya qof macaayin musabiixi baan u ducaynahayay dadka halkaan degan oo maamulkoodan somaliland baan lahaa allah idin xifdiyo wasiirada allah xifdiyaan lahaa madaxweynaha allah xifdiyaan lahaa ceeb kama sheegi talooyinkii maaragtay walaalkay coldoon waad maqlayseen ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto cafis baan weydiistay masaajidkaygaan ku jirayaa baan idhi diintaydaan faafinayaa baan idhi akhlaaqdaydaan hagaagsan baan idhi soomaaliya iyo cafiyaan lahaa walaalayaal baan lahaa haye walaalayaal marka waxaa weeye
walaalayaal anigu waa tagay dee inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun يعني عبسي إن أنا كيسة ما أنت ونول نهاي أنا الباب كيستاجي كرين أو أنا نسعون كرين أو أنا مارتي حرنما أنا كسعون كرين ودوين كهر كيسة أو أنا مساجد كأدي كرين أو أنا أدي كايري أدي كرين وكحما هاي وحلقة حلاقي بربركي وإنتاس موريان جري دع بوب برلقو كفسي حوك شيغشو حبط فير حبسيد وابوحان هذا والمسبحيو والمسلم كان كود عيانا ضد كان حبس كان مسلمين تلاقي بوحية كسو صار إلهي بان كود داري كسو صار ورإلهي بان كود داري الظلم اللي يجستكم منامكم بلو جستكسو سده ور الله بان كود داري علماء الدين كهك عين أو خيارتك عند ضدك مسلم كوحبسيتك البوح ور هلا قصو صار ور أنت دولك إلهينا لقوين كسو صار ور عدالتها لقول نقول هذا ور ولا لنمك نقول هذا ور ضدك أسجع هذا ور قبيلة إسكداي ور هس حسدنينا war hasnicinina war anigu Soomaali dhexdeeda iyo Soomaali weyn iyo maamulkii jiraba anigu xumaan kama sheegin war anigu cidna xumaan kama sheegin war anigu cidna ma habaarin war cidna ma caayin war cidna uma gafin war haddaan gafina raalli haadaan iri war nin hubaysan ma ihi war nin xabad loo qaato ma ihi war nin la jir dila ma ihi war nin maaragtay loo awood sheegto landheero iyo qabiil baan loo sheegto ma ihi war waa wax laga naxo إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا ليال وحان كلو إذي الشيء waxay qorshiiso qorsheeyeen oo ay rabeen 5 xabba in ay lufta ay rabeen ninka qorgu waa ila baxsaday ninka taliyaha markii hore laab ku jiray askartaan buu soo diray in sharax bay ku dhuftaan waan diiday waxaan iri ninkan askariga kan amarkiisa qaadan maayaan iri ma baxayaan iri askarigu marka laabka igu dhumanay ninka taliyaha musabixi askartii kaamiradu qabato markii hore aragteen uu soo diray waan diiday waxaan nimankan way dilahayaan askar akhlaaq leh oo ixtiraam leh oo ama dad maamulka ah sida ninkii muxtaramka ahaa gudoomiyaha gobolka cagaweyne oo nin khiyaara ninkaas oo kale inay doortaan ay fiican tahay ninkaas oo kale nin sharaf la weeye cagaweyne nin sharaf la weeye ninka hala dalacsiyaan leeyahay shacabka halkaan degan maamulka halkaan degan ninkaas nin sharaf la weeye marka waxaan leeyahay dawaad u jeedaan markaan soo bixi waayay ayaa ninkii taliyaha ii soo galay ilaahay baa taliya awal wuxuu rabay askartaan inuu qabto laakiin kaamirada ii shaqeynaysa waad u jeedaan alxamdulilah dad baa dhaha live-kiisu badanay live-ka isku ilaaliyaa criminals fara badanna waa soo bandhigta marka waxaan idin leeyahay soomaaliyay istooladii Memphis caadi bay waxaa maahayn tan baa maaragtay balaayadu ay jirto tan dilna taas waxba waa la igu qabtay tan jabdil madaxa laga dilay dhiig baana igu furan waxa la igu dilayna wax kala ma wallahi waxa la yiri Soomaali weyn baa tiri Soomaali weyn hadeeraan leeyahay bari baan leeyahay bari dambaan leeyahay haddaan halkaan joogana waan dhihi haddaan ka tagana waan dhihi anigu ummadda Soomaaliyeed mid baan ka ballan qaaday qabiilooyinka Soomaaliyeed anigu caay maayo una gafi maayo taa go'aan baan ku gaaray qabiil Soomaaliyeed oo caayahay ma jirto qof Soomaaliyeed oo caay ma jirto culimada Soomaaliyeed caay maayo go'aanka sana qaatay ilaahay baan ugu dhawaanaya laakiin qadiyada ah gumays in laga xoroobo Free Somalia United States of Somalia shanta Somalia in ciidamada AMISOM dalka laga saaro haddaan leeyahay withdraw your troops from Somalia we don't need AMISOM we don't need Uganda we don't need Ethiopia is our enemy Kenya is our enemy Uganda is our enemy I'm saying that in English in Arabic القوات الإثيوبية هم أعداؤنا قوات الحبشة أعداؤنا فعلى كل صومالي أن يحمل السلاح ويحاربهم
وعليهم أن يدافعوا عن بلدهم. They must defend their country. You must defend your country from your enemies. واجب إن كنت هاي دلكين إنك تحرسان. لما نشنت الصومالي هو بقاطع وميسك إسك حرية جيس نما يش واد أودان وقاتلوا في سبيل